cuqaasha waxgaradka iyo sidoo kale haldoorka ku dhaqan degmada Qurulugud oo warbaahinta kula hadlay khayriyada degmada Qurulugud ayaa baaq nabadgelyo u soo jeediyay garaadada iyo waxgaradka gobolka Sool iyo sidoo kale magaalada Buuhoodle waxayna ku dheeraadeen in la ilaaliyo nabadgelyada isla markaana magaalada Buuhoodle ay ka daayaan foodada iyo xasilooni darrada lagu kicinayo shacabka ku dhaqan deegaanadaasi waxaana ka mid ah hadaladoodii waxaanu halkan saaka ku fadhinaa waa yeelkii degmada Buuhoodle galbeedka degmada Buuhoodle ayaanu saaka halkan ku fadhinaa waxaanu halkan ka diraynaa ugu horeyn baaq nabadgelyo waxaanu leenahay oo ku baaqaynaa nabadgelyaanu ku baaqaynaa in arrinta lagu soo dabaalo oo xal nabadgelyo lagaga shaqeeyo oo nabadoonnada iyo waayeelka iyo garaadada iyo cuqaashu ay kaga shaqeeyaan intaasi waa baaq aan u jeedinayno gobolka Sool iyo shaqaaqooyinkii u dambeeyay iyo guud ahaanba dalka Soomaaliland annagoo ah waayeelkii cuqaashii ningarboodkii iyo culimadii iyo codkarkiiba galbeedka Buuhoodle ka tirsanaa waxaanu maqlaado idaacadaha had iyo jeer ka maqlaa walaalada iyadana aanu dariskanahay degmadana aanu ka tirsanahay Buuhoodle iyagoo had iyo jeer waxaanu idaacadaha ka maqlaa gobolka Cayn Sool iyo Sanaag iyo Cayn baanu maqlaa waxaanu u sheegaynaa caalamka iyo dadka aan aqoonta durugsan u lahayn Cayn wax leeyahay ma jiraan annagu gobol Cayn leeyahay ma naqaan Cayn waxaanu u naqaanaa dhuuxa Caymeed baanu u naqaanaa oo ay waligood baa loolan jiray Cayn xuskulley baa loolan jiray waa la yaqaanaa dadka oo dhan uu didib kale imika laamigu marawi degmadan aanu ka tirsanahay waa degmo ka tirsan waa degmo qadiimiyo oo ilaa Ingiriiskii jirtay oo ka tirsan gobolka Togdheer waxay la mid tahay Oodweyne iyo Shiikh bay la mid tahay gobolka Togdheer afar degmoha degmada Burco degmada Shiikh iyo degmada Oodweyne iyo degmada Buuhoodle waligeed bacaynkaasay ahay waxaanu u sheegaynaa dadka dhagahooda laga buuxiyay gobolka Cayn gobol Cayn leeyahay horta inaanu kaba mid ahayn Soomaaliland oo jirinba laakiin ay jirto degmo Buuhoodle leeyahay degmada Buuhoodle leeyahadana waxa wada dega dad badan ay wada dega dadka deegaanku ka mid nahay haddaanu nahay galbeedka degmada Buuhoodle Burcana xukunto gobolka Togdheer baana laga xukumaa degmada markaanu anagu ku xisaabtano boqolkiiba 40 baanu ka nahay degmada Buuhoodle saaka waxaanu ka fursan weynay inaanu caalamka u sheegno degmadaasi inay sidaa tahay oo la wada degan yahay gobolka Sool isagana waa afar degmo waa Taleex iyo Xudur iyo Caynaba iyo degmada Sool degmada Laascaanood halkaasna taana waa kuwii ka hadlayay odayaashii ka tirsanaa maalintii dhaweyd ee la wada dhageystay anana sidaasaanu u naqaanaado degmada ugu weyn gobolka Sool waa Caynaba waa gobol la wada leeyahay isaguna gobol u madax banaan oo dhulbaanta gaar u leeyahay maaha waxa jirtay islaan loo rubaabi baa loo jeeday islaanta gurigii wanaagsan baa wuxuu jirtay aniga ale gaarigii waxaan aragtana ana ale baa loo jeeday ninkii waxaan meel soo maray shaar cadna wuxuu jiray waa ninkay qolada imika Sool iyo Sanaag iyo Cayn ku waaratay waxaad moodaa islaantii rubaabi sideedii inay leeyihiin xaqan rubaabi dalka oo dhan degmadayadu waa Buuhoodle gobolkayagu waa Togdheer waxaan halkan uga dirayaa baaq reerkaanu deriskanahay ee reer Buuhoodle wadanahay Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle degmada Buuhoodle waxaan leeyahay dhulku markii hore nabadu inagu leegyahay reer Buuhoodlow reer Soolow Buuhoodle iyo Sool nabad baynu ku wada joogi karnaa labadaba deegaan baynu kana waynu wada degnaa kala maarmi mayno yaan Ukraine laga dhigin Laascaanood ragga dabada ka soo riixaya Laascaanood ee siyaasiyiinta ah ee gacanta shisheeye kula jira ee garaadada gacan ku rimiska dabada ka soo riixaya waxaanu leenahay yaan Ukraine laga dhigin Laascaanood oo caruurtooda la qaxin waxaan kale u sheegayaa garaadkii degmadayada ina garaad Soofe waa garaadkayagii weey baaqiisii xalay uu sii daayay waanu dhageysanay waxaad ku cadaatay garaadkii degmadayada ahayd waanu ku wada doorannay waxaad ku cadaatay inaad abaanduule noqotay waxaan awalba ka warhaynay ciidanka Cabdi Madoobe
uu halkaa ku hayo ninka aad adeerka u tahay inaad adigu meesha ku urursatay iminkana aad ciidamadii aad urursay waddaday mareen iyo halkaad geysay waan ogni waxaannu garaad ku leennahay ku soo noqo nabadda ku soo noqo xasilloonnida ma aha kama suuro gasho madax dhaqameed inuu ku baaqo dagaal inuu colaad ku baaqo inuu yidhaahdo geel baad haysataan lacag baad haysataan waxaad haysataan dhul baad haysataan waxaba colaaddaa cunta colaadda malawaydna aqoone colaaddu lacagta way cuntaa lacagtu ragga way cuntaa colaaddu deegaanka way cuntaa wax kasta oo adduunka yaalla colaadunbaa madhisa haddaannu nahay galbeedka degmada Buuhoodle nabad baannu haynaa nabadgelyaannu ku baaqaynaa nabad ina wada gaadhaannu ku baaqaynaa abtiyaal iyo awowayaal markay sidaa tahay innagoo aan waxba iska weyddiin sidee baa intaa gobol ugu sheegteen keligiin uga talisaan waxaan leenahay kama tali kartaan waa meelaynu wada leenahay wixii wada hadal ah ee aad tirsataan ee cid ka tirsataan ama beesha ka tirsataan ama dawladda ka tirsataan hadalkeeda waa idiin ogol lahay inaannu weliba idinkala shaqayno laakiin inaad keligii ka tashataan oo tidhaahdaan gobolka cayn waan cayn annagu halkaa cayntaa laamigu maraannu u niqiinay oo la yidhaahdaaye cayn maxaa hawd keenay nabadgelyaannu ku baaqaynaa waxaanu leeyahay dadka nabadgelyaha loogu taliyo samaha laga taliyo wixii la wada leeyahayna dee wada lahaanshaha yaan laga kaxaynin wixii la wada leeyahay lahaanshaha la wada leeyahay waxaanu yaan laga kaxayne ha loo daayo Buuhoodle wixii laga fulinayo waynu wada leenahay wax kastoo aynu ugu talino waynu ka wada tashay degmadayada aan walaalaha nahay reer Buuhoodle walaalahayo inay nabadda ilaaliyaan deegaanka iyo daaqa waa naga dhaxeeyaa in la ilaaliyo oo nabaddu waxa weeyaan waa gogol weeyaan colaadana waa la soo wada maray waxaan u sheegaynaa inay ku adkaystaan nabadda degmada Buuhoodle degmo inay tahay taladeedu inay naga wada dhaxayso inaynu dalka wada leenahay waxaanu leenahay dawlad baynu nahay oo dawlad Soomaaliland baynu nahay calanka shangeeska aad meel walba ka taagaysaan inaad naga daysaan dalku waa dal Soomaaliland nabadgelyaduna waa inoo wada dan haddaannu nahay dhallinyarada degmada Qurlugud garaadadu hadallada ay ku baaqeen colaadda ee ay kaga baaqeen gobolka Buuhoodle iyo gobolka Sool reer Sool mid baan odhanayaa reer Soolow nin aan deegaankaaga hanti ku lahayn oo aanu ubad ka joogin yaanu colaad kuugu baaqin Soomaalidu waxay ku maamahdaa dhaanka nin aan kuu furi doonin yaanu kuu rarin yaale iga ducaale baqari telefishinka sahan degmada Qurlugud